صحافة shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh munaasabadan waxay ku saabsan tahay waxay daba socotaa munaasabadeena xalay murashaxiinta iyo dadka waxgaradka Soomaaliyeed dhammaan siyaasiyiintu waxay arkaan marxalad khatarteeda la dalku inuu marayo oo keeni karta xasilooni darro taasna ay sababayso doorashadii ilaa hadda aan laga heshiinin ilaa haddana ay u muuqato in mataqaanaa institutionada waqtigooda dhamaada ay rabaan inay kororsi aan sharci ahayn oo keeni kara xasilooni darro ay sameeyaan taasna hadda waxaa bilaabatay in la arko saansaanteeda xumeed ciidanka qalabka sida inay ku qaybsamaan marka koow waxaan rabnaa taliyihii booliska ee gobolka Banaadir Saadiq John raalli haleega ahdo magac kale aad uma aqaano laakiin waan rajeynaa in magacaas la wada fahmaayo tilaabta uu qaado runtii waa tilaab aad aan u soo dhaweynayno muujinaysa xilkasnimo dareen muwaadinimo iyo mas'uuliyadeed ayna tahay saraakiisha kale inay raacaan arrintaas maxaa yeelay in ciidanka loo isticmaalo in xukun lagu boobo ama xukun sharci darro lagu haysto waa arrin aan ka digayno waana bilowdeen marka aad u mahadsantihiin